بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أن علمي إذا كبرتان في الأيام معلمين قوية هننا وحبيدين دقان أنا قلت يدوا دردشة مركا وشاكي سنينا waxaynu ognahay nabiga calayhi salaatu wasalaam sida axaadiista saxiixii tilmaamayso waxyigu inuu ku bilaabmay riyo. in nabiga ilaahay subxaanahu wa tacaala uu riyo wax ku tuso, dabeetana subaxii uu arko mithla falaqi subx, sida waagu u dilaacayo ay u xaqiiqowdo iyaduna wixii uu xalay waxyiga loogu sheegay riyada uu maalintii si fiican u arko. kadib waxaynu naqaanaa xadiidku inuu sheegaya nabigu calayhi salaatu wasalaam inuu jeclaystay ataxanuth, inuu khalwo iska galo, dadka ka dhex baxo, cibaadaysto, meel gaara iska tago. qaaru xiraa isagoo jooga ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam waxyigii ugu horreeyey ku soo degay. sida axaadiistii u badan tahay waxaynu naqaanaa waxyigii ugu horreeyey inuu yahay suurat alcalaq qaybteeda hore. iqra' bismi rabbika aladii khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. marka la eego dhulkii waxyigu ku soo degay iyo baahiyaha dadka bini aadamkii qabeen iyo caqliga bini aadamka haddii keligii la isticmaalo, mala qof bini aadama ulamay muuqateen dadka warka ugu horeeya in cilmi looga bilaabo. waayo dhulka carbeed wuxuu ahaa dhul dulmi badani ka jiro, dagaallo badani ka jira, masaakiintu ay ku dulman yihiin, caqiide faasidoo tiro badani taallo, bulshadu baahiya aad u tiro badan la qabto, aqoonta ay agtooda tahay waxa ugu dambeeya la raadceeyo, dadka waxa wax qora ay wax yar yihiin. ilaahay subxaanahu wa tacaala se waxyigiisii wuxuu u doortay inuu ku bilaabo iqra' akhri. nabiga calayhi salaatu wasalaam ila leeyahy iqra' bismi rabbika aladii khalaq, akhri adigoo ku bilaabanaya magaca alleh ama mustaciinan adoo kaalmaysanaya ilaahay magaciisa. qiraa'a iyo qalam wax lagu qorayo oo qiraa'ada weliba lasoo horraysiiyey. bismi rabbika aladii khalaq khalaqa alinsaana min calaq iqra' warabuka alakramu aladii callama bilqalam. idan suuradda koowaad ee qur-aan soo degtay waxay ka warramaysaa mas'alada ah wax walba in ilaahay magaciisa lagu bilowdo, waxna la akhriyo, waxna la qoro. suuraddii labaad ee qur-aanka soo degtay tee weeyaan? ya mudathir, yaa ayuha almudathiru qum faandir warabbaka fakabbir wahiyaabaka fatahhir والرجس فاهجر ولا تمنن تستكثر. نبي محمد الله سبحانه وتعالى وحكول يا أيها المدثر كيسدد يو أما كيستوضوب يو دثارك وحلا إلها دارك كرك لغا حدو شعارك وحلا إلها دارك هوستا لغا حدو. كامرة سريعة سيئة مركز سقود وضوبته أي متدثر تهي kaystuubayo kaysdadayo ama kaystuuduubayo baa la leeyahay. kac oo dig. waxyigu markaa muxuu ku bilaabmay?
علمي حلو حكسية إنذار حاكو حيقة قرآن كي كالي سود دقي محوها يا قرنا يا اقرأ يا مدثر سورة دي كلاكو حكتين يا مزمل اوكي مزمل لما حكى والرميسة يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إلى آخر الآيات. وهي علماء إلى هذا المركة محاكو حقا سورة ذاك لكو حقتا آراء العلماء واسكتر بدين علماء بربا لبضن با نون كهر الرئيسية قاربا كدن بيسية قاربا مدثر الرئيسية نون والقلم وما يسطرون بين هذا هذين مركز سيقودو اغنو وحيجي ugu horeeyay nabi maxamed ku soo dagay calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka warramayaa cilmi iyo wax qoris waa halka laga bilaabay markaa diinta islaamiga ahayd in wax la qoro waxna la akhriya laga bilaabay iyadoo mawaadiicaad u tiro badan la ay suurtagal ahaan lahayd alaaf almawaadiic ay jiri lahaayeen rabb samaawaati wal ard alladhi ya'lamu sirra fi samaawaati wal ard ilaha aalim al-ghayb wash-shahada bini aadamna og iyo baahidiisa wuxuu ka bilaabay inuu waxyigu ku bilaabmo qadiyat al-ilm waa shay ilaahay nabiga baa ugu manna sheegtay wa'allamaka ma lam takun ta'lam oo shayga quraanka ku yaala nabiga lagu yiri ziyadadiisa talab وقل ربي زدني علما هذا مادة العلم ومشتقاتها وهي قرآن كقصة أرورتي هدان تضواب بقول يسقالي تضوبات تنشير علم يعلم يعلمون مادة العلم هي مشتقات كده تضواب بقول يسقالي تضوبات بيصور نقليان شير يضان لقدرين مواد علمي الراعدة عقلية فكرية نظرية وحكلا أنا لقدر بينها مادة العلم يقولها هذا كتاب البخاري وكلية مادة تستفتح بقولة شربك وصارت هات كتب الحديث كلنا وملايين إذن علمي قاس وحي النبي محمد عليه الصلاة والسلام وردقي سيومي كمدها حديث النبي قال حكمت هيت صلاة الصبح مالكو نبي تكدو عليه الصلاة والسلام دعوينكو كدو عيسين شريم حكمتها اللهم إنا أسألك علما نافعا أوكي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام ما لنكسته بعد صلاة الصبح واقو مركو بريو كدو عيسين شريم وحكمتها إن إلهي سبحانه وتعالى وسيو علمي نافعة يا عمل لا أقبله هي رزق طيبة إن الله سبحانه وتعالى سيو أي الصبح كستكون دعاء سنشري إذا وحي هذان وحي يقول علم بوك بالأمة وأنا شيء إلهي وقالت شيكتين نبي محمد عليه الصلاة والسلام وأنا وحي الله فري إنو زياد سده وأنا شيء نبي عليه الصلاة والسلام صلاة صبح وكستا وإلهي سبحانه وتعالى كبر يشري وأنا كو إلهي كم جنجلي شري علمي آن واحترن اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع إلهي وكم جنجلي شري أقون آن واحتر لهين أيها الأحبة هديب الدين تو أي علمي كبلا منتي وحين قرن كرنا نلش واحد بيسك وأساسك سلك وحوا نلشه إن أقون تهي أقون تاسي أما علم الغيب هالنقطة أما علم الشهادة وحي قال لي نسودك أنت سبدري وعلم الغيب حق قال لك يمن سبحانه وتعالى أما علم الشهادة بهالنقطة وحنا ينوارك إنه إلهي مخلوقات كيسي فعل كيسي من نوع كلام كيسي من نوع فعاش كيسي لابد من الدراسة وبهي كلام الله سبحانه وتعالى قرآنك إيوه شرحي سي سنة النبي محمد عليه الصلاة والسلام ودينتيه أما هالنقطة أقونتن
makhluuqaadka ilaahay abuuray oo aynu daraasaynaha noqotee sida awgeed waxay leenahay dacwo kasta ama diin kasta oo la faafinayo asal waa inay u noqotaa maxay مسألة العلم ثاني المسألة أن تلمامنا وحويا مركة سورة دي كحكتها محاهد يا أيها المدثر قم فأنذر نبقوا إمسوا علم كسود دقي مركي ليدي إنذار كسماه عالم وين وكبير وقرآن كدما يميوها شو قرآن هو يمكو بالعمل هدينو لأنا شنا يا سورة العلقة سود دقي بعدها مباشرة ما ليدي قم فأنذر وهيدا آيات كان هوري نبي النمذي بي بلابين آيات كان وحيدا الرسالة دي بلابين نبي النمذي الرسالة دا محاول حيي واختيار تمعنا هيدو حويا قفكو انذار كو سمين كراه مركو إسلام بلغ بلابا ولذلك الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام مالين لبا صدح انت إلا شوغا بين قوشرين وريروه دي تلكو دي أيودي جرين لبا مسألة كلويان إن تفضفوطا ومسائل علمية كهذا الشعب إن الدعوة شيكتا لبا مسألة كالنوع دعوة مرنا أقوان صري وباهنت مرنا أساسيات دادك ويرسا وركاليتكم علمك هاقا باهنت كان سوق شوقة تكرنا تدوريها قف مسلمات هاي سلاد بك واجبه كاليتكو أقوم بدنا يوبا أنت ما شرته وقف يروح قرنا يوم أركان الإيمان كثير واجبيهين وهي علماء دو إذا دعوة وحي كسارنت أنت تقانه أنت أنا قوم حلقول ولا تقف ما ليس لك به علم أنت أقونا أنا دول هاي هيسكو كلفين عيدبا كوغو ما واجبين محادقا كوغو واجبة انت تقانا إنا تقارسيسو هاو هالرأي توحيد كيف تقرانيسا دادتك التوحيد ويار قولوا لا إله إلا الله تفرحوا بالنبي الله عليه الصلاة والسلام وارددوا لا إله إلا الله دهوا أمحي واللي بانيسا ولذلك با إلهي سبحانه وتعالى يري استاقوه كان استوبا يو ولبا حيد هذا اندثابكو إيو مزمل حيكو كلا قد يسيين بقى هذا مزمل نمدو وزملوني مركا هذا ومركا تشيف سطبا هذا ما دوران كرتا إددا دثارك لكن واحد هذان أديكو تاقن بتستوضوبي كرتا أديكو فرديات تستوضوبي كرتا waxaa la leeyahay war qof yahow joogaa shaqaa ku sugaysa kac oo shaqada u kac shaqadu waa maxay waa dadka diinta ugu yeero qum faandir kac oo dig warabbaka fakabbir rabbigaana weynee dadka maxaa loogu yeedhayaa weynaynta rabbaa loogu yeedhayaa ilaahay inay dadku weyneeyaan ayaa loogu yeedhayaa dadka badh baa maxaasinta horeysiya maxaasin alislaam waxan baa fiican kan baa fiican kan baa fiican laakiin waxaa ka asala in dadka ilaahay loogu yeedho iyo maalinta aakhiro ilaahay inuu rumeeyo iyo aakhiro in la xisaabinayo wax kastoo ka soo fula uu noqonayo qof la xisaabinayo warabbaka fakabbir ilaahay weynee baa la yidhi wathiyaabaka fatahhir مرضى قلبك جدكاك انت بمفسرته وشيغانه اصطاهريا طهاره حسيه ومعنويه طهاره معنويه با كهريسو الهي قران كما حكو يدي انما المشركون نجس با الهي ونجاس كفر وسيسو نجاسوي اذا كفر يا النفاق يا معاصي وحي لا سوده ولا اسك طهيريا وحي كلي لا يدي اسك طهيره ودنا نبي عليه الصلاة والسلام حكت المامي لبدي حواشي كشرة ويلكون ولا عذابية وحوينا لو عذاب مايو محل عذابي ما إذا كذا سكتر تري شرين ما إذا ندتكو محي سكدري شرو فساد بودي
إذن وحودا والله اسك طهيريا والرجس فهجر ولا تمنن تستكثر آياتك حكتها إلهي محكوة المامية سبحانه وتعالى لا تمنن تستكثر وحبحن أدقوا بدنكو دوريا معناه دمحوية وحويا وحاد قبانيسا آخركو الرادي دعوة ما واحد شيء سنة لقوا دعوة الشيخ بلدت كسور دويان أما المشاهر رقوق والله يداني كان هو وذا الداعية أما مايا أصلك وحويا أنا أتجنكو هشو إلهي أنا دوحكا قدونتو أما خلقي قعنتي سوحا كتشرا وحبها هم قريني ولذلك بقى قرآنك محا صورك كلا شعراء إلهي محكوة المامية مركا الرسول كستا إلهي كورمو يلا يلاهدو فاتقوا الله واطيعون مركو إلهي محكو حكسينية ما أسألكم عليه من أجر نبي ولبا إلهي مركو ضدك وقويا روح لي ما أسألكم عليه من أجر وح أجره وح منفع دونوية إذن كمربو magac kaama doonayo xoola kaama rabo inaad wax siiso ma rabo wuxuu rabaa inay dadkani badbaadaan isna uu badbaado in rabbigii la weyneeyo aan la caasinin ilaahay inaan la caasinin oo la weyneeyo ayaa waxa qofka mu'minkii raadinaya rida allahi subxaanahu wa tacaala waxa uu raadinayaa ajar hadday noqotana in ajriya ilaa cala allah ajarkaasaa weyn qofka muslimka muxuu raadinayaa markaa ajarka dhabta uu raadinayaa waa janno iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala raalli ahaanshihiisa iyo aakhira wixii la helayo adduunka manficiisa waa wax iska yaroo kooban maxaa ku xiga والرجس فهجر صنمك يوحي لها المعربة كفقوا معاكو حاجة هي ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر هدا الدعوة والدقاقضه وولبا أي تهي وحارد وأجر كدورين دنوية نفتوي كهنسة ويدالسة ومثل بعد أديكو ضدك إحسان بو سمينيو يسلا هادين ويرد مركي هدنا إياكو كردبان كاهر يمادان مركانا وسيد دالسة واتليس قفك دوناك قوصة ميسي وناك قوصة ميسي وحسلاتي توقو يرى شكرا بوكو ورندونا لكن هذا بوكو عايو أما كو ماغو أما كو دعاية ديو أما كاهر يمادو حالكو سيدون نقنيا إلهي وحولي ولربك فاصبر إلهي درتينا والصبر هذا دعوة حبارته وحبا كاهر من دور سورة ديكو حكتكتو ما يهيد بينو لي مزمل سورة مزمل وحو إلهي كقور رمى يبيع علماء يدهدان زاد المؤمن أما صهيدا قفك مؤمن كأي دنيا تنوبة هي الدين تنفافيه صهيدا قفك مؤمن كيوبة هي الدال كان يوحنا ودني لو سينيسا وحوقه الرئيس مناجاة الله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا صحابتي بلوغا أهيد الدين تهدى صوغ الشيء الدين تهدى اللوغو يريي وحلقوا بلابي إني إلهي ستاغان هبينكي إن بدن إني استاغان نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام سيو تاغنا أي عقوه برري جرين قفك انتكو قادتا إن عقتكو بررتو هذا 10 دقيقة ولا 20 دقيقة هبينكي انت تقعدتو كتو عقومكو برريان قرما عقي برري كرتا ومرة دينتي تاغنيت ساعة الدوينة تاغنتهي إلا نصفه أو انقص منه باليدي أو زد عليه قليلا هدي أد وقت بدن تاغنتهي مركز يدعي كرتا إن عقو كبرران هدي ساعة نص ساعة يا 20 دقيقة 40 دقيقة تاغنتهي عقو كبرري ميسو نبي الله محمد وحزاد لو قدقي ومن الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. حل لوgu xigsiiyey zaadka mu'minku kow waa munaajaat ullah oo qiyaamu leyla. ka labaad ee looga dhigay waa maxay? warattil ilqur'aana tartiila, inuu qur-aanka akhriyo. qofka muslimka ahi waa inuu wardi yowmiya oo fiican oo qur-aanka u akhrinayo. waa inaad ugu yaraan maalintii aad aqbashay ilaahay inuu kula hadlo. ilan qur-aankani waa kalaamullahi subxaanahu wa tacaala, waa ilaahay hadalkiisii. qur-aankani waa saddex shay oo wada socda bay culammadu yidhaahdaan. waa mucjizadii nebi moxamed calayhi salaam, waa kalaamkii ilaahay ugu horrayn oo weyni u baahan. waa mucjizadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam. waa risaalada daatuha, awaamirteedii iyo nawaahideedii iyo wixii lagu farayay intaba kitaabkay ku jiraan. idan waxaynu u baahannahay qur-aankuna wardi yowmiya inuu kuu yeesho. warattil ilqur'aana tartiila innaa sanulqi calayka qawlan haqiila baa ilaah yidhi. war culus ayaa lagugu soo rogayaa baa la yidhi. war culus baa lagu dhiibaya. laakiin warkaa culusi muxuu u baahan yahay? ina naashi'ata alleyli hiya ashaddu waط'an wa aqwamu qiila. cibaadadaa habeenkii la amaamudo ee laysu taago, taas baa gomadana sugta, warka u fiican ah. maxaa ku xiga? ilaahay markuu intaasoo dhan faray ayaa waxaa la faray rabu lmashriqi waalmagribi laa ilaaha illaa huwa faاttakhidhu wakiila. tabatulka iyo qur'aanka iyo soo jeedka markii la faray ayaa waxaa la faray nolosha gebigeedabana inuu ilaahay tala saarto. allaha ah baa la yidhi rabbiga ah, mashriq iyo maqrib baa allah u rabbiya. allaha cibaadada keligii le laa ilaaha illaa huwa ah, faاttakhidhu wakiila baa ilaah yidhi subxaana wa tacaala. ilaaha u tala saaro nolosha dhammaanteed. waxaa loo sheegay haddana noloshu inaanay dhib waayeynin. markaasaa maxay la yidhi? wasbir, maxaa ku xiga? calaa maa yaquuluuna wahjurhum hajran jamiila. waxaa la yidhi sabir, wixii kaaga yimaadee kasta. adigo haddaad diin sheegto oo lagu yaro maaga maxaad samaynaysaa? cadha madaxu ku dilaacaya soo maaha? bale inaad dagaalantaabaad u dhowde. dukucaaya maxaad yeeli lahayd? kaad lahayd warkaaliga udko. adna kitaabka intaad dhigato feedh ma u duubanaysaa? ya ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa ambiyadii oo la maagayo oo sukhriya lagu samaynayo, istihzaa oo waa saaxir la leeyo, waa kaadib la leeyo. bal adoo ilaahay ka warramaya marka lagu idhaha beenaa laa tahay ama saaxiroo laa tahay, maxaad samayn lahayd? wii caaya baad odhanaysaa. oo miyaad ogola ilaahay dartii in lagu caayo? ilaahay wuxuu leeyahay sabir calaa maa yaquuluun. waxa ay ku hadlayaan oo dhan waxbaa ka soo qaadin baa la leeyahay. ilaahay baa tiisa dadka ugu yeedhaysa. hadday afxumadoodu badatana wahjurhum hajran jamiila. iskaga tag. khud ilcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin. waa wax magarato ee ka jeesa baa ilaah yidhi subxaana wa tacaala. kuwani waa wax magarato ee ka jeeso. dardashadaydu waxay ku kooban tahay markaasi haddii waxyiga saddexdan ay u soo horreeyeen, saddexdan suuradood ay u soo horreeyeen, meeshuna ay ahayd jaahiliya alcarabiya, meel sanam la caabudo oo laysdulmiyo oo nabad iyo dowlad iyo waxba toona aanay ka jirin, oo ilaahay subxaana wa tacaala nebi moxamed u soo diray calayhi salaatu wasalaam inuu dunidoo dhan islaaxiyo. nebi moxamed makaa laga soo saaray, laakiin xaggee loogu talagalay? tabaaraka aladii nazla alfurqaana calaa cabdihi liyakuuna lilcaalamiina nadiira. waa aayad makiya. isagoo aan maka ka bixin baa la leeyahay dunidoo dhan baad u digaysaa. loo soo diray inuu adduunkao dhan u digo. qof kasta oo raba markaa inuu waddadii nebi moxamed qaado calayhi salaatu wasalaam
raba inuu bulshooyin isbeddel ku sameeyo raba inuu diin xambaaro raba isaga laftiisu inuu badbaado saddexdan shay kama maarmo kii u horreeyay muxuu ahaa مسألة العلم مسألة العلم كما مارت سيبا علوم تحقق لك تمي مسألة العلم وإنه لأن هاي قارهان تي إلهي حقي سكتمي نبي محمد عليه الصلاة والسلام نبي عليه الصلاة والسلام حليه من يريد الله به خيرا يوفقه في الدين علمي وحوه الرأي كان ديمت ويكن السبب وحويه هي إن هذا إلهي برته إلهي دارت قراني سفي عنه معابد كريس إن هذا إلهي برته سببيه السببيه هي عبادة دوينا يصحده عبادة ومبهنا ضدك الصدى يالان ونادياشو نكي صلاة التكادي محنا بكويري صلي فإنك لم تصلي هذا يقول داوشتها هي سيدة ضدك ياليا كنابة سحابة أركيي كنابة محي سحابة أركيي كاسا لها صلي فإنك لم تصلي وهو علمه فائدة وياهي نولش أيك لسعد كده ونولش ودن باو باهن أقوان باهن حلال يا حرام وباهن إنك كلا قرطه إذن الدنيا آخرة إنك بدبدا علمي وباهنتي دين إنك تكون قنتانا علمي وباهنتي حتى أدونك علم بالقلم با إلهي تلماما نولش ودن ما أنت الدنيا دو waxay u kala xoog badantay sida u kala cilmi badantay soo sama ogidin markay maadada tagto sida u kala cilmi badan tahay bay maxay ay u kala xoog badantay sida ay dhaqaale badan u kala gelisay cilmiga bay u kala xoog badantay wadannada nimka la yiraahdo waxba horumariya waxba ka noqday macnaheedu waxa weeyaan hanti badan bay galiyeen aqliga bini aadamka in la yiraahdo wax baad hanti badan bay geliyeen baxsiga cilmigu lacag buu ku joogaa hanti badan markii la geliyay kadib bay midhahan dhashay iyaga jahligu wuxuu ka haystaa kalaamullahi iyo ilaahay kitaabkiisii may daraasayn laakiin waxay u dhaqaaqeen khalqullahi inay daraaseeyaan ilaahay ficilkiisa inay bartaan laakiin qofka muslimkii muxuu u baahan yahay labadaba إلهي كلام كيسي فعل كيسي بين الدراسيس إلهي خلق كيسة إيه كتاب كيسة لبضا بين وقفك مسلم كي دراسي أبو بهي إذا نلشوا هدي الربا إسبدلين وكدعوا لا بد من علم وقراءة قراءة مدماته أقونتنا مدماته بنادم كعلم عمر كيسة كير ودماته قارو قفكوا إذا هذا وحبرش عندما يمجرته erayga Soomaaliga waa la qalin jabiyay aad buu qalday qalimku marna inuu jabo maaha marxaladu ma laga baxay qalinkaagu waa inuu ku fiiqnaadaa inta naftu ka baxayso way marnaba kama maarantid inaad wax qorto iyo inaad wax akhrido iyo inaad wax barato marnaba kama maarantid saawgeed dhalinyarada badbay la culus tahay sanawaadka ma farsanaan ku jirana shan baa lagu sii jiraya toddoba ka sii damay ma waligeey ma waxbarashaan wadayna war ilaa inta godka ka galaysa la wadaa tan imka tirinayso hore waa asaasiyaadkii waa wixii aad aqoonta ku dulbinaysan lahayd waa asaasiyaadkii nolosha ayaad ama asaasiyaadkii diinta aad bilowday laakiin ilaa iyo inta naftu ka baxayso waxaad u baahantahay inaad wax barato نبي محمد مرة قاعد ما يصير سماها هذا نوح كده عيساني محي اللهم إني أسألك علما نافعا وقل رب زدني علما بود شو وحي السماء وقاي من يبو هذا نول الرادعيني أنا قون إذا أنا قونت مرة ماته وأنا هلك نلش والله قبل أبو نلش جبي كده وهلك صار قبل أبو
قضية اللبات أي تلمامس أي آيات كان وحويان علماء ما ضدك وحبرتي وحل يلوا ورثة الأنبياء صحيح معها هو وحبرتي يقال الربعين يدحلان نبي النمدي نبي النمدي وحي كسر دق ما لكن نبي وحي وكتة جبال الربع محي هنا يدحلان ساشوا حويا النبي وينتو قاري عليه الصلاة والسلام النبي قالنا يا الله حق الله صادري دوني دوران صومها انتو يسقوا تجي وقت انت لك بصنولا انت الرسالة دو كسر دكتي ولا ضو بطن تاريخ دو لواتن يصدح سنة كوكا لنا وابا كثير يعني أوه لبي لا تنصر الدور بلود لبي لا تنصر كذا ويتلبابا هذا إنه تاو بدن قادنا صدح يا لواتن سنة inuu waxyigu intii uu ku soo degay ahayd 23 sanadoodii waxyigu ku soo degay jasiira al-arabiya kama bixin nabigu alayhi salaatu wasalaam xaqana tabuk buu gaaray inta yare jasiira al-arabiya dagaaladu ka dhaceen ama diinta uu ka faafiyay uu nabigu tagay hadana waxaynu quraanka ku haynaa suwarkii makiga ahaa waliba in loo soo diray maxay dunidoo dhan إنه الدين تقارسيه نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام مركي قدام بيسي حجة الوداع مسلمين تسوي ما دينا دتك انتو تربطنا يتشوقي حقوا لها اللهم هل بلغت اللهم فشل بلغوا عني ولو آية واردين كان الرسالة دي دكورة يبونا بيقولي يلاو مرخاتك هنا نديبي إينا إنك إنو سو ديبين inagu markaa ma halkaynu la fadhiyaynaa saxaabadii haddaad eegto inteeba ku aasan baqiic wax yar saxaabada intii ugu badnayd xagay jiraan ardullaahi alwaasica bay ku aasan yihiin caalamul islaami waxaan isleeyahay maanta intaan la haystee la degan yahay waa inta iyagu furteen waa saxaabadii nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam intay furteen buu u badan yihin مسؤولية أبانا صارا يا أيها المدثر قم فأنذر ولي بايدينك حد دقنتين دول أي دقين ددي ما كلا هيستا صوما تعيا لسكولك على الغلمية سلامين كرويدان هذا أنت كلا قاري بويدان كويدن لدا ده قوة مالها نشوغا قوة ندين شقاية قريها ودا دقنتين ياك شقاية يا ضد المسلم waxay soo idin shaqeeyaan wali ma u sheegtay wax sawax tira maraduni mayd ya gabdhaha oo mayaan muslim hayn muslim oo dhan baa laga rabaa qof kasto muslim inuu diin sheego yani mushkilada ay haysataa waxay tahay waxaynu u qaadanay dacwadu inay tahay lecture in la jeediyo تمام صافر استين لكتر لجيديو ولا يا وسيله كميد اي نيتاي اما اكثرها اي نيتاي وين سبك شو ما هذا الصوماليين ما تغنى وين سبك شو وانك دا اسغا سبك لو قشا اسغا ودا سبك هذا سبك kale ku sii shubto waxa dhacaya taani ma kaydin sheegay waa وين سبك شو دعوه اصليه ودتك إن إلهي أي رميان اللي قارسيه مالت آخر أركان الإيمان سوما تغنين أنت سأصلها إن دتك اللي قارسيه وما دوردن دبا كاغا إيمان دونتي دبتا كاغا إيمان دونتانا لبشا يوم بيوباهين إن تصبرته يا إن تزاد كاغا سيدته صحيح هذا سفر لما قال هذا قال محي سيدن صحيح سوما تغنين هذا زاد سيدان هذا صحيح سيدان سفر لما قالوا مركز صحيح هذا إن تقاضته أو مناجات كاد إله إلا الله هذا صلاة تكون ساينة بدته قرآن كذا خرسان ساينة وبطه صلاة الليل كتكون ساينة بدته إلهي تلا صار شدا تلا صار ساينة ويناته وحاصرنا موزات كي عليسك كاف ديدينه ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حديث تبع كل قاتل markay dhibtu ku dhacdo muxuu oran jiray arixna biha ya bilal ama ida hazabahu amrun faz'a ila as-salah din nabiga alayhi salatu wassalam wax muruga galiyaan xaga salaadu waa carari jiray
culayska maanta kugu yimi iyo dhibta kaa hortimi iyo mashaakilkoo dhan maxaa rogaya inaad ilaahay is hortaagto adoo soo jeeda oo waxaad akhriyaysa garanaya oo ciddaad la hadlaysa garanaya inaad ilaahay is hortaagtaa wixii daal iyo mashkilad ku haystoo dhan bay kaa rogaysaa inaad ilaahay kitaabkiisa akhridaa wixii dhib iyo mashkilad ku haystoo dhan buu kaa faydayaa waddaduu kuu ifinayaa qur-aanka inaad laasimto ilaahay inaad tala saarataa waxay keensanaysaa makhluuqaad oo dhan inaad ka maaranto makhluuqaya awooddiisu inaanay kuu muuqanin mahmaa ay yihiin ilaahay baa wuxuu leeyay wadarnii waalmukadibiina ulin okay aniga iyo kuwa isu ka eedaa baa ilahay yidhi anaa xisaabinaya waxba aduu indhaha u taagin kuwan daaraa dhistay waxa kan waa lagu xisaabinayaa su-aashuunbay badsadeen intaad cuntana wuu cunaa bishaad seexata meel leegna wuu seexdaa maradaad xidhantay mara leegna wuu xidhaa wadaad sool noloshuna waa intaa xisaabtunbuu badsaday su-aalaha aakhire la weydiinayo buu tiro badiyey laakiin ilaahay wuxuu yidhi kuwa aniga iga tegey adigu aniga ii daabaa ilaahay leeyahy xisaabtooda xaggaygay jirtaa adigu shaqadaada qabsow kelmadaydu markaa waxay ku kooban tahay haddii saddexdaas suuradood aynu sheegnay ay yihiin saddexdii suuradood ee qur-aanka ugu soo hordegay waxaynu ka fahmaynaa asaaska dacwaddaynu inay saddexdan ku salaysnaato intaa ma gunti karaysaan maanta asaaska dacwadeed aynu rabnaa inay ku salaysnaato saddexdaa shay cilmi iyo balaaq iyo cibaada saddexdaa shay inay u noqdaan dacwadeenna sal inay u noqdaan haddii aynu saddexdaas sugno noloshuna way fududaanaysaa diintana dadka si fiican baynu u gaadhsiinaynaa dee anugu waan idiin soo ururinayay faahfaahinteedana kutubtiinay ku qorantay وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين جزاك الله خيرا شيخ الله بركايو إلهي سبحانه وتعالى كابر مريو كلمة داسية بروجنتاس وإن لو ذاقي وحاجر أرضي سؤال سوقد بي الشيخ وان إمام با شيخ انتو سو صعدي سؤال سوقد بي مركز سؤالها سينو شيخ ويديننا wixii isku dhowna waan israacinanaa ama mid baan ka soo qaadananaa su-aasha koowaad sheekh waxaa weeye ma bannaan tahay in la daawado musalsalaadka islaamiga ah sida kuwa turkida ordoqrol ama cuhmaan iyo wixii la mid ah iyadoo ay ku jiraan gabdho mararka qaarkood timaqaawan oo cawradooda la arkayo in la daawado taariikhdaas bannaan tahay fikirka reer galbeedka sisee looga xoroobi karaa oo loo waajihi karaa wixii su-aalee fiqiya waxaan filayaa muftigu meesha inuu joogaa waddankan iga u fadwado soo maa sheekhu mal su-aalkan ma joogo isagaa weydiinaysaa wixii asilee fiqiyaa wadataan musalsalaadku guud ahaan waa iska riwaayo rag sameeyeen xataa taariikhiyan ma u sugan yihiin sidanuu kaatibkaasi u qoray scenario kaatibka qoray sidan uu qurqurxiyey uu miyay taariikhdu tahay mise maaha waxa igala roon ilaan idinku caamo ma tihidin inay kutubta akhridaan mala kuwa caamada ugu talagaleen hadday qaldan yihiin hadday saxan yihiinbe idinka waxaa laydinku talagalay maxay taariikhdii qoran baa helaysaan الدولة العثمانية يسوي سميسنتي يا علماء المسلمين تي هجامين سي يا قادة دي هجامين يا الدجالة دي أي جلان يوحي ودمي في التاريخ هو مكتوب تاريخ القديم يا تاريخ المعاصر لبدا والهلية أكثر من 10 كتب بهليسان وكور رمية رسالة داسية قرا دولة داسية تاريخ ذي كور راوية مركايدك واحد كل طلنا إياه أنا ويدين ما فتوانا يا مسلسل كمان أنا قرنا ما يوحي لكن waxaan idinku fatwoonaya idinku ma tihidin ragii musalsalka waxaad tihiin ragii kutubta musalsal ragii daawala ma tihidin ragii kutubta akhriye lahaa ee waxa kan si fiican u dhuuxi lahaa kasbati reer galbeed intooda badan soo gaalow maaha
dee gaala imisaad qur-aan ku aragtay aladiina kafaruu iyo walmushrikuun kuwa miyay ka baxsan yihin waxaan idiin sheegayaa qur'aanku bini aadam wax lagu qanciyo oo loo sheego ilaahay hadalkiisa ugu muhiimsan qur-aanku markuu soo degayay yaa la lahaa kula hadal nabiga calayhi salaatu wasalaam dadku ma wada muslimiin baa ina qur-aanka akhrisanaya mise gaalaa loo sheegaya ilaahay markuu leeyahay qul yaa ayuha alkaafiruun nabigu yuu ku odhanayay ya dee gaaladaa lagu odhanayay yaa ayuha alkaafiruun gaalay ha kuwa lala hadlaya yaa ahla alkitaabi marka la leeyahay dadka masaajidka joogaa lala hadlaya ahlu kitaab baa ilaahay la hadlaya socankaa ma aha haddaad adilla caqliya raadinaysana inta qur-aanka ku taallaa ku filan waxa laaliya waxay daliil falasafadu sheegaan ama ilaahay jiritaankiisa ama rasuulka rasuulnimadiisa ama aakhira jiritaankeeda qur-aanka adiladiisa ka badan laakiin waxaynu u baahannahay caqligii fahmi lahaa ee la soo bixi lahaa iminka markay masalatu tawxiid ka warramayaan tawxiid arububiya kaale maxay ka warramaan adiladooda ugu badan علماء الكلام أو علماء الفلسفة وما أدلة بدني ودليل النظام أو دليل النظم أو دليل العناية واحد تبرده دليل النظام هي دليل العناية وحقوق قرية وقرانك إلهي سبحانه وتعالى خلقك يسد وأبوري سيسق حريني وحكستو النظام له وحي بهين قف عدم نظام سي دليلك هو أنت معنيش هذا واحد نظام مصور مثلا دار تمادر هذا هالكاتي ما دو أردك حد سكتول أنا دركته ولا هذا ده بيشار ريح ده هلا يا بين أتذكر ربيسه لكن دارتنا ده دركته ولا قرأ وسكر سنتي ما يلغى صح هذا حد كديد وهذا النظام بيقول سنتي كون يا شيء الدربية ده سوق وقياس سنتي سال سوق سي نظام بيقول سنتي ولا ده هدو شيء منظم يهينا ولا بد من ناظم هدو تصميم يهي تصميم لا يهي ولا بد من مصمم لكن قرآن كا وحا صعدا تلمامية يمسائل هي كونك يسدو أبوري يخلقك يسود لام وترمام يمسائل هذا قرآن كورمية واحد هذا آيات كفقك كورمة يا آيات كونك كورمة يدسميسة آيات كونك يدسميسة كورمة كبدا آيات الفقه حوالي 500 آية بيشيغان تكلا واحدة أكثر من 1000 آية ويان بين هذا إذا قرآن كورمة وحين أقول دليل إلى دليل الحدوث دليل كسود الرنت آية واحدة أما نصف آية كورميسة أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون وحن ودن لا يهي هرادين ولي بعدو مركزنا اللي راتاي هرادين قال هذا سيلو الردية معها ورقران كبراي سجى الردينية وران كم قال كي النبي قال لك شو قال لها كله أو كورنية إسقى الدلة عقلي وكشرتها الدلة وجداني يا قلبك الله هذا يسقى كشرتها كيان كبني آدم كويس كلا جسما وعقلا وروحا سقوا كتاب كم لهذا ليه وح الله ليه وح الشبهات صو أروريان ودنا القرآن كان ردين وقفلا لكن وحوبة هنتي إن السفي عنه فهمتان سو حوبة هنيدان استنباط وقسمين كرتان وحول بس استنباط ويبا صفقه واستنباط وما باهنا أيضا الدليشة وحوبة هنتي محي إن الوصول الاستنباط قرن سياسة وحلو الدليشة دو كل شيء قرآن كان بتكيه ليس إنه باهنا هاي لكن وحوبة هنتي إن القرآن كسفي عنه دراسة وأمد الله بعد إذا كل ما تلينا يينا كتبت قالة دي أفكار تودتونا حد مرحلة دارنا آخر ده مركز هذا أدوق الجعبة ده بوحسته أتكبر تور راسخون في العلم شبهاتكم مركز وحبكوا يا المايا قرآن كإلهي معودك هو راسخين تها يقولون آمنا كل من عند ربنا بيتاقي حتى هدو مسألة جواب ويردبكم ما هيسو ويكون دليلك الله هيستا لكن هذا مركز أدبلا وطهي هل مسألة هرو فهم ويدي بوحاجة بقلقل كرتا
أضلول مكرتا إذن كل ما تلينا كتب الشبهات هي كتب أفكار الغرب هي كتب عين كان هذا يسكو مشغول سان مرحلة دنا تشوفتان مرحلة دنا وحوبة هنتي إن سفي عن يسكو مشغول سان إن الجعبة هذا بحسته جعبة هذا مركب بحسته أبواب تكلوا نقا لكن أديكوا ولي بلوة ورقالات سكداف أنتي صحابة كفلات هكو كفلات نبي مركو أركي عمر حستا ورق يرى التوراة كم يدم حكويري لو كان موسى حيا بين أظهركم لما حل له إلا أن يتبعني هدو النبي موسى نحدي نتشوقي لها أيو الرسول كلي عليه الصلاة والسلام نبي موسى حتى هدو تشوقي لها ومبنا ناترين وأرجع يراعم وياري كوي هيستقبل له ما محيادك كتر يسابوا لي مركا وحبا كتاب قال قري سجى بك قاور وقال يا محمد فلي مركا يتهاي مسائل عقائدية الدينية أفكارية وحكو سابسة السجى بك قالوا بيله هدور نفلي هاي سبوا كوي سلام الهاي أدق واحدهم بهنت هنا القرآن كاجي يدي هذا برته مركا تنسف عنه برته علومتك لك وأنفع سنة وطلوا السلام عليكم. أيوة سؤال يا شيخ. جبينا هل سؤال عن قدر شيخ؟ هل ماذا؟ إن شاء الله بالبدين. شيخ سؤال عشان أكون جبينا نوحى علماء ذي هراء إن ميل السرق جاران علمي كجاران محاول صوابي أنا وسام جاري كراميش جارين. إذا كنا بني آدم باتهين يكون بني آدم بهاين صحيح كما إذا كنا بني آدم باتهين يكون بني آدم بهاين وحيدين دحية ومحي وددالك يا وقت قال بحيه هداد أدوغو لبا ساعدودنا موبيلك كجرتو لبا ساعدودنا شيكايسو 10 ساعدودنا سيحتو 4 ساعدودنا ما عاد كتمادو دي وقتي وو دhamaaday tiraada hadana maxaan kuwa u gaari waayay de kuwaas rag bay haayeen hurdadooduna yartay waxbarashadooduna badan tahay waxa muqriyaadkiya waxa la isku mashquuliyo dhan aan isku mashquulin marka haddaad dadaashaan hayran waxbarashadu saddex shay way u baahantay bis qof kasto saddexdaa helaa halku doono uu ka gaari karaa manhaj inaad hesho يعني كركلم وحلا الراعو محنو قدان لي دلنت الدنبر دبتا هستا مالنا بخاري وقفوراه مالنا 40 كو اخرستا 40 بخاري لما ودا اخرستا مالنا كتابك مقدمه وحق وين سي منهجي او سعدان كانت برنيس السوق وحبا مدكله وسي هانقل تاغي توسو سوع marka منهج للراعين ويجرو كلبادنا وقتي انو جرو محدد واد ku talagasho waxa kana dhamayso كصدحنا مشرف موجه معلم قفكو هجينات هيساتو صدحدا هداد هيساتو أقول هلك دون تابت كجاري كرتا وحا انت كصهراء كحرنتاي وجهدي قاعد بحسه إلهي سيدا ضو حرنتاي أدو بريدي دعاء الله أقبله إلا نداد أهل معاصي تاي وحبا قلبك مدوبان يوديرين ميسيدي هداد سي أهل عبادتهاي وإلهي سيفي عنو حرنتاي marka waa dheeraynaysaa abwaabtuna waa kuu furmaysaa hadii ilaahay albaabka kuu furana waa wax fudud sallallahu ala muhammad abka dahabalaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahabalaas oo adeegyo dheeraad ah lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahabalaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada